Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome with open hands for this YouTube channel. And I am teacher Abdulrazak Musa Ahmed Abdulrazak Diren. Kusoo dhawaada akhyaar gacmo furan. Waa aniga Abdulrazak Musa Ahmed kuna magac dheer Abdulrazak Direne ku baro luqadda Ingiriisiga si fudud adoo meel ba aadin. Insha Allah maanta waxaynu qaadan doonaa 15 kelmadood oo qofka Ingiriiska baranaya uu aad iyo aad ay u anfacayso. كلمة كوبات exhibit لقى عفيي exhibit لقى عفيي prisoner has exhibit for the guilty دنبيله أم بقف كان محبوس كا واحد لقى عفيي دنبيه كلمة اللبات excretion دالحيس كابن excretion دالحيس كابن تصالحان we went to excursion for the last week waxaan tagnay xaflad yaro dalxiis yaro gaaban toddobaadkii ugu dambeeyay kelmadda saddexaad justification cududaar marka qofka ku leedahay stop justification cududaarka jooji kelmadda afraad embracement ceeb marka tusaale ahaan qofka ku oranayso don't talk with me I know that is your embracement hay kula hadlin aniga amba hay la hadlin aniga taas waa ceebtaada kelmadda shanaad colonize gumaysi kelmadda lixaad custom caado isn't that your custom taasi maana ceebtaada ahayn kelmadda toddobaad torture jirdil tusaale ahaan many countries of Africa happiness for torture dalal badan oo Afrika waxa ka dhaca jirdil badan kelmadda sagaalaad prison jail kelmadda tobnaad weep oohin the baby still is weeping ilmuhu weli wuu ooyaya kelmadda 11aad expel eryid kelmadda 12aad fate qadar tusaale ahaan don't you believe the fate miyaanad aaminsanayn qadarka kelmadda 13aad complain cabasho kelmadda 14aad wedding aroos is tonight your wedding caawa ma arooskaagiiba kelmadda 15aad ram waad ku mahadsantihiin sidaad noo dhegaysateen iyo daawashadiina subscribe waxaynaga iloobina waa anigo Abdulrazak Musa Ahmed YouTube ka Direne English Learning Funnies ku xidhnaada